بسم الله الرحمن الرحيم markan waxaan ku tusayaa sidii analyze-ka lagu sameeyaa SPSS-ka qaybta lagu magacaabo case series ama case report-ka sida lagu sameeyaa marka hore waxaan tegaynaa analyze waxaan u bixinay menu-gan inuu yahay heart of SPSS waxaan tegaa report oo meesha aan rabo inaan kasii guda galo marka analyze ku dhufto report doorto waxaan dooranaa case summary markaan case summary doorto sida caadiga ah daatada waxay ii taalay halkaas laba group aan ka dhigan karaa variable iyo grouping inaan sameeyo laakiin waxaan rabaa variable ka dhammaan wada geliyo oo aan yiraahdo si summary u tus wixii oo daatadani ay ka kooban tahay automatic waxaa leeyahay marka okay wuxuu ii soo saaraa marka summarizing report yar oo kooban oo haddii xataa waraaq aan ku daabici karo oo aan dadka horgeyn karo oo laakiin analyze aan fiican laakiin dhammaan waxna uu soo badan dhigayo waa kana case processing summary uu ku cadeeyay numberka intay wada ahaayeen percentage intay wada ahaayeen missing numberka percentage missing numberka ma jirin numberka guud ahaan intuu yahay total percentage intuu yahay soo celi laakiin waa iska caadi halkan wuxuu ku muujinaa markay summary-ga saxsan fiiri numberka guud waxay ahaayeen 10 xabo total numberka 10 ay ahaayeen gender marka la joogo intaasa waxay ahaayeen male iyo female inta ilaa saas u bardhiga saas uu wada marka number 1 ko wuxuu ku ahaa male da'diisu jiray single ayuu ahaa bachelor ayuu ahaa student ayuu ahaa yes iyo doortay waxa dareemaysaa marka su'aalaha isku dhici kara waxay dhahaan su'aalaha iska hor imaan kara dhaqso waa fahmaysaa ka soo qaad idoo meeshan mail ku yahay oo aad tiri wuxuu jiraa 15 sano haddaad tiraahdo PhD oo ka war ama 25 PhD aan u qorto ka war collation ay imaanaa dhaqso waa fahmaysaa marka su'aalahaaga waxa collation ku imaan kara wax kale samir wax ku fiican marka inaad sii ogaato su'aalahaaga maxaa iska hor imaad ku dhici kara ayuu ku fiican yahay marka saasuu ku fiican yahay haddaad inta reportka ku faageyn kartaa ama wax kale ku samaysan kartaa laakiin si sax ah waxa ogaanaysaa in daatadani ay accurate tahay iyo in kale waa jiraan markaan ku noqono SPSS-ka oo aan ku dhufto analyze report oo aan soo aado qaybaha kale waxay u kala bixi karaan iyo soo row report summary hadda aan sheegayna oo in row loo diyaariyay row bis u qoran iyo soo column u qoran laba nooc way jirtaa laakiin labada nooc waxa ka muhiimsan marka case summary-gaas ayaa ugu fiican oo ah kan hadda aan ku sharaxayay oo noocan ugu fiican oo hadda nooca ku soo bixi doonana naqshad hadda arkaysa fudud marka in la qaadi karo meel kale la geysan karo waxaan ka wadaa marka haddaa u baahato xataa inaad ka jeegarayso qofka SPSS inay saxsan tahay naftigeeda waa isticmaali kartaa way ku fududahay inaad jeegarayso maxaa collision jira su'aalihiis miska hor imaanaya isu waafaqsan yihiin noocyo kala jira oo lagu hubin karo hadhow gadaal insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.